gobolkan waxaa la yiraahdaa Shirang Pat run ahaantii dad aad u fara badan ayaa ku nool boqolaal sano ayay jirtaa marba wuxuu ka talin jiray Sultan Tipu nin la yiraahdo waxaa jiray dhaqan xeer sharci intaba balse markaas kadib Tipu markuu geeriyooday nin waxaa soo baxay Hari la yiraahdo iyo waliba nin Keesho la yiraahdo ayaga ayaa maalin walbo meesha fitna ka abuuri jireen gobolkan wuxuu leeyahay saldhig maxkamad talis intaba balse waxaasoo dhan waxay hoos imaadaan Hari iyo Keesho ayaga ayaa dadka waxay doonaan ka samaystaa doqon yahow lacagta aan kuu sheegay haddii aad qaadan lahayd maanta horumar ayaad ku fadhin lahayd laakiin adiga hadda doqonkaas ayaad warkiisa qaadatay adaa doqon oo damiir lahayn war yacni janaalka waxaan u furtay shacabkeyga inaa ugu daneeyo kanaalkaas anigu waan burburin karaa ma ogtahay midaas maxaa burburi karti mala warya doqon aan damiir lahaynaad tahay warya daacadda oo noocaadoo kale ah mar walba waxay ku haminayaan inuu qof imaanayo xaqooda oo u dhicinayo taas waa riyo adiga aad ku riyootay waxaa kaloo kuu sii dheer doqon adiga mar walba waxaa jeceshaa in taariikhda ay ku xusto laakiin taariikhda kuma xusayso doqonnimo ayaad u dhimanaysaa adiga ugu wadaba dadka waxay yidhaahdeen qofka markuu xanuunsado digtoor ayaa la geeyaa qofkii kibirkiisa batana Hari ayaa loo geeyaa kanoo kalena dawadiisa aniga ayaa haayo wiilkayga kanoo kale looma baahno wakhtigaaga inaad ku lumisid ee hooshaada cab ayaan ku leeyahay cab hoosha walaalkay aawe war waa la gacan galay weligeyga waxaan fiirsan jiray filmaanta weli waxaan ka dhigay hal qof oo 10 nin ay garaacayaan balse maanta indhahayga ayaan ku arkayaa yarkaaga toora iska dhigay adiga kuma socon meesha ka carada ayaan ku dhihi lahaa ninkan intaad u gudbin aniga ayaa ku dhameynaayo maxaad dhamay kartaa adaaba 3 kiilo ee waryahoy maxaa naga qaadaysaa intaan kugu dhameeyna hadda halkaan ku dilana waana arki doontaa ma ogtahay waraabaha kan aamusan iyo kan qaylinaya kan aamusan inuu khatar yahay ninkaad ku tilmaantay inuu 3 kali yahay ayaa wuxuu soo dhamay kartayga buugiisoo dhan
raganimo ma ahan 10 qofood inaad hal qof ku dishaan laakiin raganimada waxay ku jirtaa hal qof markuu 10 qof oo dilo kaligiisa wali fulay sidiisa buu ulal badan yahay laakiin usha qaadanaysa waa inay noqotaa mid waxtar leh oo waliba nin loo eego la saaray aniga meesha mar walba waa jeclaa inaan ku duceysto laakiin nasiib waan u markii aabaha la bedel ayaa nasiib u helay ka waran he waxa la meesha qofka ku duceysto ducada waa laga aqbalaa mar run baana ii sheeg biyo وكتوغا كان بيان ورنقا تكبر كل حتى انت دورب ارمونيو شيطان كان اسغا ما بدي مناي ميا مرو انغا waxaan barinaa in uu dhinto shaydaanka ma xaq u dhacay gabdhaha biyo biyo tartiib هلا كيشو يا أخي قفكا واداوع وحور يالا برتماه مقالة مياشا لقد دقامستون كبريا انتو إماتان اسبتال جاي آذا يوداوع عيها مركا دقصوغو إمادي دينك maxaa kugu dhacay wiilkayga walaalkaa wuu fiican yahay maxaa dhiig kolkaa ka muuqdo dadkii walaalkay soo garaacay ayaan anigana gacmaha ka soo gooyay walaal horta aniga nafsadeeda wiil ayaa badbaadiyey wiilka makoo i badbaadiyeyne gabar ayaa biyaha afka igu qabta gabadhaasaan doonayaa baaritaanka markuu dhammaado kadib 2 maalmood hoostaada ayaan keenayaa gabadhaas waxaan rabaa inaan guursado aniga wadna xanuun daawo waa loo heli karaa wiilkayga jiro kale haddii ay tahay xitaa daawo waa loo heli karaa macno ma lahan laakiin adigoo xaas leh inaan naa kala guursanin naagtaada maxaad ugu jawaabaysaa ii sheeg hadhow adiga ayay su-aalku weydiinaysaa waatanaa maxaad leedahay markaas hadeer naag inaan guursado aniga yaa dacwo ii dood ka qabo gabadha walaalkay uu ku waashtay sida ugu dhaqsiya badan waa inaad ku keentaan aniga gabadha xageen ka raadinaa ciwaankeeda maba naqaanay war gabadha gaashaalaha baadale baa la orinayay madane muxuu yahay hadduu dhalayna walaalkay ayaa jeclaaday runtii gabar waxaa la guursadaa marka adiga dhibaato ay ku haysto gabadha kuu naxariisato gabadhaana waa ay kuu naxariistay adiga inaad guursadna waad ku qasban tahay istaag guduudkaasida soo ma jeedid waabaayo soo ma jeedid dadkoo dhan meesha way ka carareen ninkan weli wuu taagan yahay waa nin sharci yaqaan oo inaad sawirtaa facebooka rabaa inaad dhigtano mudane runtii markii ku soo laabato shaqada aniga aad iyo aadaan uga farxi waana mahadsan tahay yaqay adiga mudan mudane halkoo arrin kalaa jirta ii sheeg runtii mudan aan howlgab markay noqdo dadaa garab iigu sii shaqada inaan kusoo laabto dadkaas inaa ii ogaatidaan u baahanahay intaas taliye walaal harii kunkooy ku doonos walaal harii ah meeshan ma aha ee xafiiska igu sugo soo sheekaya wahaye مدن هري نينك مقالنا وقتر سنواي هديس انت إمادن وينس وإمادي وعن كل إلا اسك خابل وانكو سلامي مدن
harii ninka la dhahaayo si wanaagsan ayuu ii ammaanay middaasna waa midaan aniga muteystay fadhiiso wiilkayga fadhiiso waayahay waxay ila tahay meel qaldan inaad imaadeen waa maxay waxaad la imaadeen ninkaan aad u jeedid adeerkiis ayaan ahay harii ayaa la dhahaa walaalkiis ka yar ayaa jira keeshu ayaa la dhahaa aad ayuu u qurux badan yahay yaraantiisa wuxuu jeclaa bisooladda inuu ku cayaar hadda markii uu weynaaday bisooladii ayuuba ku tegayba gabadhaada ayuu jeclaaday waa inaan ku darnaa marka burcadnimadiisa ku faanaya lagama yaabo gabadheedii inaan ku daro waxaan ahay boolis ahaw ama wasiir ahaw waxaad ogaataa mar haddii gacanteena ay qoortaada gaarto sirwaalka aad ku kaadinaysaa taariikhda ayaana qoraysa middaas walaalkay gabadhaada mar la kulansii haddii uu dhididka keeni waaye isagaaba nin rag ahayn mar dambe kelmaddaas afkaga haddii ka soo baxda uu xabad ayaan afkaga gelinaya orea bistooladda adiga aad sheegaysid annagaba waan wadanaa ogow haddii ay taada kugu yaraatana annaga naga soo doono tanna adiga iska xaraysa ayaan ku leenahay mar koowaad qofka aniga wanaaga ugu imaana haddii uu diidana burcadnimadeen ayaan tusnaa taasna aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso gaashaalla adiga si fiican ayaad kaartada u jeli taqaanaa gabadhaada waad diidi kartaa micno ma lahan laakiin hadda hurdadiinna way wanaagsan tahay cuntadana si wanaagsan ayaad u cuntiin hadda waxba idinkama hadlaysna laakiin mid ogow gabadhaada haddii aad isku dayday inaad diiddo waxaa hubanti ah taariikhdaadoo dhan inaad u baasbaxayso dhegaysta dan walbood iga leedihiin xafiiska ayaad igugu imaanaysaan gurigayga dadku ma qaabilo waa markii ugu horraysood qalad gashaan waad yaa cafiyey ee ka taga guriga si fudud ayaa waxaa ku tidhi halkaan ka tagaa anaga ma baxeeno ilaa aan danteenna ka gaarno hadda wiilkeenna wuxuu rabaa adiga gabadhaasi sharafle inuu ku guursado haddii aad diidid waxaad ogaataa gabadhaada 7 ayuu la gelayaa kadib ayaa la guursanayaa taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso arrintaa waxaa naga xigtay inta walaalkay isbitaalka uu ka soo baxaayo mar hadduu walaalkay isbitaal ka soo baxo naag la'aan guriga ma tegaayo middaasna waa inaad maanka ku haysaa walaal hari dumaashidaa waa taasaa haye dumaashida mustaqbalka shoobig waana si fiican u soo adeegataa arooska ma rabna annaga inaan daahino waan dadejinaynaa nabad wiilkayga nabad haa walaalkayga gabar qurux badan ayaa dooratay adiga midii horena inaad disho waadba ku saxneedba nasiibkaaga waad ku guulaysata ayaan ku dhahay kuu gashay yaaway ninka aniga i guursan ninka markuu dhimanayo adiga biyaashiilis kaa saara inuu ku guursado kabaran ka sheekay hoy waa maxay waxaan dhacayana waa 3 awood boolis biskoolad iyo tuugo dadkaan waxay rabaan inay ku guursadaan aabbahan middaas ayuu diidan yahay oo dantiisa ma yaqaana asaga dadkaan afkeena la gala ma ahayn muxuu la galayaana marwo dadkaan ujeedad naxariis baa ninkaan hadalkiisa waa ku saxan yahay maxaa yeelay gabarteeda inay wateen seerawaanka intaan bacdeena waa dilaynaan ku dhahay naxariis ma u samaynayn qoortay ka jaraynaan dadkaan ujeedad weliba unuka boolis waa iska nahay iyan boolis unahayaan ku dhahay khalada ay galaayaan bacdeen unuka meesha loo inaan raaligeliya waa u tagayna iigan raaligeliyeena tas bidaadannim maanta inay suul rabto wax lagu ogaadaa markay badato xumaanna cid wax noogu qaadi karta ma laha sababtaa saman ayaan wadanaa annaga mideeda kaleeta ayaga wax walba ha sameeyaano laakiin guusha annaga ayay noo dambaynaysaa in iiddaada khayr u sheeg gabadhaydii gabdhaha run ahaantii hindii ku nool caadi ma ahanan ku dhahay weliba waxay u dhaqmayaan gabdhaha yurubka imaada camal ma waxay kula tahay hindii inay dambayso hindii way horumarsan tahay way imaadaan u malaynaa aniga nasiib badniyaa saakii iga soo warbaxay nasiibkayga aad ayuu wanaagsan yahay gabadhan aad u qurxan ayaan arkay waa inaan ku dhegsadaa marka waa maasan tahay kale walaalkaysiyo qofta caruusaya warkaad haddii la maqlin waa lagu kajiya hadda baa kuu sheegay dignina kuu sheegay qofkan qofka wanaagsan waa inaad raysataa qoftan waxaa gursana keeshuu baay ee keeshuu baay isku kaalay keeshuu muxuu yahay hal mar waa la kulma ayay ku ilaabaysaa fishaali cabdulka jeclaad soo midkaas mahana aha أريا لا وفوسي هذا نرجع كلام بينهم كذا هذا يهو وياك رجلنا وين نقطع هذا يعجوز هذا أريا أقدم بهداك هذا تتوجد قف قرك يسقط طوال لك أصبعها كالي ما حكى قلدنا قف كواي كودي مثلا
naamu waa la tanakeen qoftan ru'aanti aad bay qurux badan tahay waryaa hooy ninkaas ma arkin oo qoftaan usaa jecel aligu kabina afaareeda ka bax adiga kii sugaa sheegiisa xaggayga wuxuu ka yahay canug 3 jira canug 3 jira gabar weyna 20 jira ma ka faal qaadi karo balse aniga waxaan ahay 20 jira gabadhan oo kalena waa dadka loogu talagal inay la wadaagaan nolosha aniga waxaan bala qaadi karaa gabadhan nolosheeda iyo mustaqbalkeeda in aan dhisi karo aniga noloshan waxay macaan leedahay ma taqaanaa markaad jecelkaaga naftaada halis aad u geliso anigana waxaan diyaar waa nafteeda inaan halis u geliyo dhib walbo khatar walbo gabadhan darteeda diyaar waxaan inaan u galo nolosha waxay macaan leedahay ma taqaanaa markaad naftaada jecelkaada halis u geliso jecelkay ku qaadan maaha weligeed mid ay ilaabayso meel walba guurka ayaa laga sheegoyaa adiga nintaygu maxaad guursanaysaana aniga amarkayga wuu ku dhacoyaa marka maxaa iskaga dhiidi waysana aniga maa diidi karahe qof walba mustaqbalkiisa asaga ayaa go'aan ka gaari kara adiga markana iska diiday ahayd aabbahaaba gaashaale tuugada maxaa qorta kuu geliyey taas waxay u egta adigoo dil toogasha lagugu xukumo adigaaba ogol iska dhimi saaxiib mararka qaar waxaa la fiiriyaa duruufta meesha taalo duruufta meesha taalana waxay tahay dadkaas waa dad tuuga awoodna way sheeganaya sharciga gacantooda ayuu ku jira aabbihi waa daacad waan ogahay laakiin waxaan u diidanahay inay dhibaato soo gaarto anigana aqli ayaan isticmaalay sidaas ayaan oo aamusay marka ma fahantay aniga aabbihi aad ayaan uga naxaya yaaqin mid kale iska jeclaa oo la baxsano waaba ii fiicnaan leed haddii aan helayo nin aan ogoleen korkayga in la taabto oo geesi ah laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmaa ka mid a inaan helayo nin sidaas u fiican oo i jecel aniga aana ogoleen aniga in xaggayga loo soo dhaqaaqo gabdho akhbaar fiican ay dhihaaya xansad baa iskoolka jirto maya wiil cusub aa iskool kusoo biiri wiil cusub ah wiil cusub wiil cusub wiil cusub aryaa wiil cusub aa kusoo biiri iskuulka wiil cusub waryaa gabdha waxay idin sheegaan see loogu ogolaan karaa gabdha iskool dhigtaan nin isku soo biiro nin meeshaan intaan aan joogo mamnuucay ka tahay adiga nin ma tiiriyaa macalin aniga nin waan ahay laakiin nimanka waxaan dheerahay nimanka nimankooda nin kale nas meeshaan imaadan aniga raalli ma kana qaahay marba ininka anaa idin leh ininkana anaa ileedihiin oo kaale hadda waaba diidantiinniya naag walbaani gabad inaan ka qabo waryaa hoy doora diiqeed ma moogo doorahin diiqeed ma moogo damac le qaadaa dalkana ka tegaysaa dama eegi ma dawooshen waryaa hoy idinkaad i ahaleed maxaa dhihi leedahay ninkaas iisheeg baadaan ku weydiyooyaay iisheeg adaan ku weydiisayele aniga haddii ahaan lahaa si fiican ayaan hab u siin lahaa oo macna waa ku baryaynaa naag nin la'aan ma noolaa karta naga daano adiga iimaanka allaniga siiyo naag nin la'aan ma noolaa karta yaa ku yidhi anii tan waaba ka sibe meeshaa markay ka baxdo shaxaaday magaalada u tagtaa laakiin anii shaxaadkaasaan ka hor joogsaa nin maarkays waryaana cala qabtooshiyaaliyo waalidiintiina meeshaan waxbarashaan igu soo dira niman inaa soo dhaweysay maa nin haddii la soo dhaweeyay anna li soo dhaweeya nin kale maba soo gelaayo meeshaan soo baxa lamaantiina macalin maxaa dhigaa gashanoysaan adiga khaylidiisaan diidooya waad ka qurux badan tahay macalin waa liigu dhaliyaan ku dhahay soo baxa kan nin ma ogol iimaanka alla ka qaaday gudoomiye kusey 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 dooni mayno maxaa la qaylinaysaana maxaa la qaylinaysaa maxaa la yidhahdaa koolejkaan anina nintee war sharciga hore waa la bedelay sharci cusub ayaa koolejka loo sameeyey miska qaylinaysaa adiga ma waalan tahay mawaalni ee waxaa ii waxaysaa maamulaha 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 naftirkeed maamulaha naftirkeed maamulaha naftirkeed maxaa ku daarin ood la qaylinaysaa maxaa ku daarin ood qaylinaysaa ay leedahay meeshaan ninaa imaaday nin sas ku soo geli karaa nin aan ani ahayn xasan jilico muu ogola idinkana waa imaanaysid dadkaan magaan soo wati muujada anigay taageeri yihiin ballan waayaan ku dhahay waayahay adiga dadkan kugu raacsan dadka waa igu raacsan yihiin exusdana igu raacsan shaqaalaha iyo madaxda dhan ay raacsan yihiin aniga gadaasheeda fiiriha loo joogaa muujadid miya aawa hadda waxaad aabiya gadaasheeda mala jooga miya ya malisiibta keligiiha maamula raalla ahaw gabdhahan waxay dheheen waa kula jirnaa nin marabno adle nin noo hadda markii meeshaan imaadina waa ii kala baxeen waa ujeedaa dhib ma lahan adiga waxa wanaagsan amarka maamulka uu soo bixiyey inaad diyaar u ahaato kursi walba
oo kollejka ku yaala wiilasha in konta kuraas looga gooyo ayaa lagu talagalay marka sidaa daraaddeed haddii aad dood ka qabto adigoon banaabax sameynno carruurta soo shirin waxa rabaa maamulka inaad u tagto laakiin waxaa kasii wanaagsan inaad iska dhaafto maamulka hadalkiisa runtaa waay bes iga raalli noqon ku dheh anaa gefi ma oho khudbadayda leen ku ekaha naagahana niman haddii u baahanyihin anaanba ku dara raalli ahaaw gabdha adinka ma waxaad rabtiin wiilasha cusub inaad la kulantiin soo sax maahana laakiin aniga ayaa ninkaga hormarayo midaaba taleefonkiisa gacanta iga saaray okay tartiib yaa qays aniga ayaa nin xalinaya sawiradoodoo dhanna halkan ayay ku jiraan emailka 300 waaye website-kana 600 waaye yaa haddaba ogaada iska soo tuura lacagta maxaa meesha ka dhacayana horta ninkan araggiisa ma xuma sida shukulaatadii oo kale aad ayuu u macaan yahay qorshaha uu kuleejka u yimid waa 2 nooc inaan annaga ku dheelno ama inuu asaga nagu dheelo ani gabdhaha yara istrukeyan waxba muxuma laakiin naagtan ay fareeja la dhahayo da'mu dhigta dugo dhiman bis igarkeed camal waay waa istrukeyosa iimaanka ilaahay ka siiyey subax wanaagsan macallin subax wanaagsan macallin war adduunya gadoon inas yahay 7 jir waaye wiila imaadaya ima qashi rosetay afka marsohoysa bilcaanta birkood mashiixaayaan mudana waa ku salaamay adduunya gadoonkan arka ninaa imaadile la maqli cajariidhana la soo qaaqaabi iimaanka allah ka siiyo kuwaana mudanaha maxaa daaray واو ويل فرتك حرم يا يمت كلاتك اكشن كيسا حتى وقطر ورق باش كذي تايو رواء ايان لين صباح الخير صور كنا لا تصي يقاب هانتيس هذا ايوب قروح بدن yahay عادي ما هن كان ما حد ترين صاحب ما waxba ma ahan ee bixin kan اوكي معلم جيكي قبلها من معني وكلي سعدان مر معلم جيكي هدي اتيري معلم كان اي قبلها وخابي ليه انا لكن كلي يا هاي قبلها ما لها اللي اقانو وكان بقى يا مكان هو استاغو وحال ربا كلسوني ازقلي معلم جيكي يكو دعي واي محاسمة يا معليشك وقابي ليه هنكو داي كلسوني بوحدهم كسي ودعي وما سنتها معلم قاعد بعد ما استنى mahadsanidin gabdho magacii waa kaarti krishna kusoo dhawo kuleejkeena mahadsanidin maanta maalinta jacaylka miyaa ubax ayaad gacanta ku wadaaye aragtida koowaad maxabo ayaad nagu raday maxabada waxaa loogu talagalay dumarka haddii soo dhaweyn laga helayo waa wax wanaagsan anigana waan ku faraxsanahay iga guddoon mahadsanid minasaawana miisaankaaga 75 kiilo kalarka jecesha balaaga gabdhaha qurxoon ubax waa na badiyaa gabdhaha noocay jeceshaa kuwa faashiyonka gabdhaha faashiyonka nooceed ka heshaan adiga mana sheegi kartaa kuwa da'deeda gabar saxiib ma leedahay maya saxab ayaan leeyahay jaceylna maya gabar aad ka hesho ma jirtaan maya haddaad heli weysan haddii aan heli waayo nolosha ayaan isdhaafinaa waa badan noloshaa nooga sheekaysay kulankaaga aad ayaa ugu faraxsanahay waan ku salaamay waan kaa qaaday anigu waan ku aqaanaa ma ogtahay anigu sidoo kale waan ku aqaanaa laakiin sidee gabar magaalada degan aniga aan aqoon u lahayn wayba yar tahay aniga markii uu samaa faraa xidhnaa ayaan laamiga kuga arkay sharciga waad dhowrtaa adiga aniga sawir ayaan kaa qaaday kadibna facebooka ayaan dhigay waad mahadsan tahay laakiin hal mid aan raba inaan kuu sheego wiilka adigu guursanaba ma aha mid kuu qalma dadkoo dhan sidaas ayay dhahaan maxaa dhacay ma iska dhaartid maxaa sameeyahay duruuf ayaa jirto inaan ogolaado waan ku qasbanaa mana diidi kari haddii ogolaado waa dhib haddaan diidana wayba ka sii daran tahay dhib malaha magacii waa kaarti krishna waxa kale kugu taga figarahan mahadsanid adigaa mudan kulanka koowaad ayaabad hadalkaada igu qancisay aadaad u mahadsan tahay sidoo kale mudane shil labaad ayaa magaalada ka dhacay
maalin cad ayaa dadka la dilayaa xayawaanimada way ballaaratay maxaa kale keeshii walaalkiisa ayaa ka dambeeyay adi ma caddayn kartaa gaashaan laataad maxaa wax ugu qaweysi sheegbe war dhegeysta hadal meeshaan looma baahna warbixintan dadka idin soo siiyey hal qof markhaataha ii keeno waxaa idin tusaa wiil iyo walaalkiisa inaan xabsiga gudaha u dhigo haye yaa maanta xiisa ma jirto maa tiri sawirkiiwees xisad seerabtiin idinka seewa waa igu joogjoogsoosiin madaxayga istaagoosin be maxarabtiin kaartig kabadhi ayuu dheelaya asxaabay akhay maxayna soo baxa kaartig maa kabadhi ii dheeloy haddana maanta kabadhi 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 jag iga dhaha oo kaali kharajo muhiima eed saa in loo dhedheelo haa laakiinse anigii adiga kuma jirna dheeshaan ogow ya maalijiki ciyaartan ciyaar rabo dhibaata ma iga imaataan ila keliga ay arka halkan dhib male aboo miixa waa mahadsantan diiq keligiisa doora dhex ordaayo deb waa ku dhacaa nasiibkiisa isqaba يا استاذ قرآن يا خيو beella waaye be haddiiba gabdhihii nimanka ay wareeriyooyin dhulkani wab ay ku sii ku joojoogsooyin aniga waa fofooriya aan ku yidhi waa fofooriya waan ku salaamay waan kaa qaaday kaliya maxaa halkan ku fariisiyey aniga hal dhib ayaa haysto dhibkaas ayaan inta la fadhiya sidaas darteed waan fakirayaa hadda marka ii sheeg waayahay walaalkaarti iyo asxaabtiisa aniga markaan gurigayga aadayo iyo markaan ka soo baxayaba iyaga ayaa i daba socdo teeda kale haddii aniga qof jidka socdo ila hadla xataa qofkaaseeti si xun ayay u garaacayaan dhibaatadaas ayaa aniga i haysta dadkaaseeti dad ay dhaafayaan ma lahan inaan meel aada xataa way ii uriyaan aniga cidna lamaba hadli karaba sida darteed iyaga ayaan uga cabsanayaa hay macaljiki welwelka dhaafgalaan ku dhahay dadka اوكي ادين فسحينو هدران غلا غرتاد ادغيسو هل مالن كليه دulqaado yiri macaljiki hawshan waxay ka dambayso way ku dhamaanaysaa qolo free ay noqonaysaa waa ku bariya kaarti kaftanka naga dhaafno waryaa wadada noo baneey wargad socda adiga istaag ayaan ku dhahay
walaal waa ku salaamay walaalkayga yaraa waan kaa qaaday nolosheeda laba qof ayaan jeclaaday waa adiga iyo adeerkay adinka dartiinna si aad farxad u heshaan wax walba waan u samayn karaa laakiin adiga waxaan rabaa magaalada ka baashaal aqligaadana waa isticmaashaa war adiga intaad nooshaha walaalkaad magaaladan waa ku raaxaysanaa uma jeed siduu faraxsan jecel ayaa galay runta waay dhib ma lahan asigale hal mar ha guursado jecelka inta afku hayn waxa laga yaabaa in uu burburo taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso maxaa idinku dhacay aniga gabadha gaashaalaha ayaa idin dirwajigin muxuu sidan u yahay dhaawacan ayaa idin soo gaarsiiyey wardee haddii nala ogaado unukoo dhan waa noloda la'aab baan ku leenahay war maxay tahay dhaawac wejigiina ku yaala ii sheega bal yaa idin geystay kan dartiisana u dhacday kan dartiisa ah kan jidkii markaas soconin nin islaameesna u daadaansada beerkaana laga soo tumo galey camalan oo laxan jiriyey dooli haddii aad gambareel qoorta u gelisaan oo mukulaal aad u dirtaan mukulaasha ii deedo waay aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso hay gabdho maxaad ugu dha halkaan u fadhisiin waxaad u egtihiin dad baashaalahay oo kale oo buug jecel akhrisanayo walaalkeeshu ayaa walaal fishu soo wacay waa ku salaam macanta aniga dib ayaan kugu soo laabtay runtii nafsadeeda adiga ayaa badbaadiyey maanta haddaan nool lahayna adiga dartaada ayaa u noolahay marka waxaan kuu sheegaya macanta inaan kuu soo socdo waana kuu imaanaya aad iyo aadaan ku waxaysay mar dhow isug nintaasoo keliya dhibaatada ma ninkii adig ku guursan lahay miyaad ka baqaysaa kale yaqaaniga nin tuuga miyaan guursadaa nafsadeedaba kuma aaminayo ninkaas maanta hadduu tuug yahay waxaa laga yaabaa marka uu ku guursado inuu iska daayo oo nin fiican u noqdo bal ka war markaas marka kaale aniga maad rabtaa inaan ninkaas nin fiican ka dhigane nafsadeeda qofkay rabto ma dooran qof walba dooq ayuu leeyahay balse dooqiisa maahan miduu helaayo waxaa laga yaabaa qofka qofusan rabin inuu helo aniga cabsi darteeda haddii aan u ogolaan waxay kula tahay nafteeda inay ku faraxsan tahay ninkaas aniga ma rabo maxaad udidaysaa nolol heer sare ay ku noolaan lahayd war nolol heer sare ma rabo aniga nolol farxad le ayaan rabaa aan ku noolaa rii habeen iyo runtaba midna lama qariyo dadkan hortooda ka caddeeya aniga inaan ku jeclahay adigana aad i jeceshaa middaas inaad ku nabadgeshay ayaa laga yaabaa ogow fishali xageed ii wadaa adiga ii sheeg fishali xageed ii wadaa fishali isdeji adima xageed ii wadaa ii sheeg ila hadal loo adig halow idhageys dadyow dhammaantiin isku imaado waxaan rabaa dhegeyna inaad i amaahaysaan aniga waad i taqaanaa magacaygu waa fishaali waxaanay dhalay gaashaanlaha gobolkaneeti waad ogtiin aniga waxaa laysiiyey keeshow adigana waad wada ogtiin aniga keeshow ma jecli waxaan u ogolaaday daruuf jirta awgeed laakiin aniga waxaan jeclahay kaartig aniga awal awood aan uga hortago ma haysan laakiin hadda waan haystaa kaartig aniga waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan kula noolaado adiga ama ogolow ama ha ogolaan nafsadeeda adiga ayay ku rabtaa aad ayaan kuu jeclahay kaartig aniga waan ku jeclahay mana kaa dabaara nafsadeeda adigoo keliya ayay kuu baahan tahay kaartig go'aankana gacantaada ayuu ku jiraa kaartig inakeen walaalkaa ku wacay war ma jecli mana u tagayo u sheeg asaga jeclaa ma jeclaa ninkaas waxaas ma qoreen haye arrintaa maxaan ka dhahaa ii sheeg maxaan ka dhahaa maxaa la dhahaa waa gelaysaa bag iyo xawada ka dhawey gabar diidan in la kaxeeyo haddii aad idinka xog ku kaxistaan waa calaamada ay burcada leeyihiin amaba lagu yaqaano war adiga yaa tahay magacaygu waa kaarti krishna labalabada aawadiin maahan midaan qaadanaya aniga hey annaga aqoon ma noo leedahay aqoon iska daaya aniga si fiican ayaa idin qaanaa balse ka waran gabar haddii wiil ay tiraahdo waan ku jeclahay wiilkaas hortiisa haddii aad ku kaxistaan wiilkaas maxay ka aaminaysaa inuu doqon yahay aniga waan ku qasbanahay marka kartideeda inaan idin tusay gabadhan inaan jeclahay waxay okaadiya fishaali dhegeyso jecelkaaga yuusan noqon mid aad ninkaas aniga igu reebaysid jecelkaaga ha noqdo midaad ku guulaystay run ahaantii markaad jecelkaaga ii sheegato anigana aad ayaan kaaga helay waana ku jeclaa fishaali jecelkaaga intuu ila jiro lagama yaabo aniga inaan guul daraysto hey kan waa kii ina garaacay qof weyn wadkiisa wuu yaqaana haddii aan wejigiisa soo xirta hataa aqoon ayaad ii leedaa sooma imaba ilaabin uryaha kolajkan gabdha masaakiin ayaa dhigto balse waxaan kulila caga dhigo
keena walaal ninka waa kaasaa nafsirkeeda badbaadino waaye ani adiga saaxiibbanahay halkaa maxaa ka qabanaysaa ninka raggan looma baahno naagaan rabin inuu gursado ee waxaa loo baahan yahay qof asiga jecel inuu gursado haddii uu gursado qof aana jeclayn nolosheeda way baaba'day asigana sabab ah nolol fiican kama helaya gabadhaas noloshiisna way baaba'aysaa maalintaas marka aan ku badbaadinayn waxaan u baahnaa dadka adiga ku dili lahaa cabsida aad ka qabto in aan kaa baaba'iyo waaba ku raadinaya inaan adiga ku arko waana ku arkay ogow gabadha aad u socoto inaan aniga jeclahay biyo ay ku siiso nafsintaada ay ku badbaadinaysa miyuu jecel kugu gala adiga kaale fiisaalin waa xaggayga maxaad ka leedahay waryaa ciyaar yar maadaama aad sheegto waad iga badbaadaysaa adiga orodoo iska tag walaal bas waa ku barya aniga qaladka aan galay waa ka soo naqday mar kale ma u dhaqanayo gabadhaasna maba raboba walaalkaaga ma wuxuu ismoodin magaalkan inuu asiga keliya u taliyo mise wuxuu ismoodin limaxa magaalkan dadka qalad yar markay kaa galaan waad baabi'isaa idinkana qalad markaad gashaan waxaad u baahantay inay la cafiiso maa mala socotaa adiga walaalkaaga masaakiinta dhibaatada aad u geysteen weliba waxay isugu jiraan carruur iyo ciroole dhibaatada u geysteen neef ma ugu bedeli kartaa adii sheeg markaas waad iga badbaadaysaa inta ka sugaysa lagama yaabo adiga inaad iga badbaado masaakiinta dhibaatada u geysteen neef waa inaad siisaan markaas kadib ayaad iga badbaadaysaa awaar degdegayna soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan ninka kaysibaay la yidhaahdo la la'yahay ilaa iyo hadartana ma lagu sheegin war waxaa ugu dambaysay markii ay dagaalayeen dhalinyaro badan asagoo ku dhex jira ayaa la yidhi in meeshaas lagu waayey wixii warbixin kalena anaga soo gudbi doonaa rowtiliye ninka kaysibaay shal dagaalka u geliya lagu la'yahay waa la'yahay halo
arko walaalkay gareesaa loo xiray walaalkay orda ii soo dejiye maxaa u taagantii walaalkay ii soo dejiye socdo tartiib soo deji saarigaas ka furmin saariley kac yaa saarigan ku xiro saan ku galay ninka adiga markii hore nolosheeda badbaadiya ah maanta waa kanaa sidii dumarkoo kale igu labisa saariyo iyo xore haloogaye waa ii dhamaatay sharafteeda waa u dhamaatay aga dhigo ninkan adinka dartiina leh wax muu samaynin anaka naftirkayna mustaqbalkayna evereska dhiga wariyaahoy anaka naftirkayna gareeskaas loo xiri inaan u xirnaa ballan ee wariyaa kama dhaafeen caabi nimanka yaa bisaaleen nolosheeda ku ciyaare reer ma ku xiri karo ninkaas saaridu ku xiri walaalkay aniga ma dhaafayo qofka sidaan u galay waa ballan inaan asagana garees u xiro siduu walaalkay ugu xiray oo kale ma daynayo kaas mana iga badbaadayo waxaan isdhahay isaga ayaa ku doogaya maantana waa kanaa horteeda ayuu ku dhintay aniga mar walba waxaan jeclaa beedkeyga asiga inuu laakiin hadda waa kanaa beedkiisa ayaan gubaya aniga way dhamaatay karabla-aan ayaa igu dhacday maxaan sameeya aniga wiilkeyga waa kanaa meeshaan ayuu maasoo ka watay reer binsale inaad soo dillo waxwadoodaa soo kiciyey lama dhaafin dhowr mar ayaan kuu sheegay haddii adadis war wanaagsan ku hadal aniga hadalkan hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso inta meedkan oo noo yaalo looma baahno wax dhaqdhaqaaqa inaan sameyno dhib walbo anaga noola geystayna waa u dulqaadanaynaa aniga hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso kadib ayaan tallaabo sharci ah ka qaadaynaa inta laga gaarayena maan anaga wax dhaqdhaqaaqa in aan sameyno ninka wiilkeena sidaan u galayna lagama yaabo in uu naga badbaado kow ayaan ka siinaynaa waan dilaynaa halo walaal kumaa tahay adiga anigu waa neeb ah in lay weydiin meeshaan ka imaaday iyo qofkaan ahay waxaad weydiin kartaa oo keliya sababtaan walaalkaaga sidaan u yeelay iyo aad marta keentay midaasoo keliya ayaa loo baahan inaad iga waraysato aniga saqajaannimada walaalkaaga sameynaya ee gabdhaha magaalada joogi waayeen asiga waa dulli adigna waad ka sii daran tahay hadda kahor waxaa jiri jira 200 walaalo midna mid kale khaladka ku gal mid kale wuxuu jir wuu saxan yahay ilaa uu midka walaalkiis ka arko markaas ayuu aqoonsaday walaalkiis inuu qaldanaa marka adigin noocaas ayaa tahay warkaadu wuu weyn yahay wejigaad mi hor keeni kartaa adiga midaas aabihi ayaa i baray aniga adiga waxaad iga badbaadaysaa mataqaanaa sida walaalkaa oo kale gabdhaha laamiyada kuma qasqashaadid haddii aad gabdhaha laamiyada ku qashaado waxaad ogaataa sida walaalkaa oo kale laamiga in aan ku dhigaayo mana iga badbaadaysid midaasna hore ayaan u ballan qaaday aniga halkaan waxaan u imaaday libaxyada isma hadiyeen inaan u dhammeeyo waxaad qalad gashay walaalkay korkiisa markii aad taabatay midaan haddeer waa boorsamiindo filimka waa uu kuu dhiman yahay walaalkaa kaa yaraa ani waan u degay balse asiga wuu ifahmi waayay saas darteed qadka ayuu ka baxay adiga haddaad ifahmi weysan waxaad ogaataa inaad qadka ka baxaysid adiga hadal walbo afkaaga ku soo dhacay waad ku hadashay laakiin aniga hadalkayga si fiican waa inaad u dhegaysataa aniga ballanta aan qaaday sidaydaba waan oofiyaa waxaad ii sugtaa oo keliya walaalkay meedkiisa intaan ka soo asturaayo kadib dunida meel walbo adiga aad kaga dhuumato waxaan ahay qofkii kaa soo saari lahaa mana laga yaabo in aad sinna iiga badbaaddo adiga baasriho okay haddii sidaas tahay waxaan raadinaa meelaan kaaga dhunto uu horan googlaha buu weydiinaaba googlaha haddaan ka helo meelaan kaaga dhunto way ii fiicanta waa kaa dhuumanayaan waan ka xumaa googlahane wuu isoo qaban laahe dhib ma laha ajensigaan tagaaya waxaan leeyahay tikid ii jara oo ninkaas aan kaga dhunto meel ii geeyaan leeyahay inta ku sugaysana xafladiinna waad sii wadan kartaan qofka barnaamijyada noocan oo kale ku dhaqaaqa waa qof jeceel ahaayo mideeda kaleeta adiga arday ayaa tahay maxay tahay sababta kugu kalaftikiisho inaad dishid aniga waxaan ku dhihi lahay barnaamijyadan faraha kala baxa mudane bilaash aad igu eedeynaysaa
kiishu baaya asaga ayaa gacantiis ku dilay dilalka noocaas oo kale maxkamadda waxay ku eedaysaa inuu ka dambeeyey qofka ku kallifay qofkaas gaashaal ma haddaad hurdada ka soo toostay markii asaga iyo walaalkiisa magaalada ay qasaayeen gabdhahan ay kursanayeen waayelada ay dilayeen adi xaggeed ku nooled ma hurdaysa xiligaas ii sheeg waxaan malaynaya haddaa soo nabdaaday marka hadda adiga amar diidda miyaad samaynaysaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta haddii ay wax ka qaban waayeen dhibaatada lagu hayo shacabka marka ma diidan tahay anigoo kale inaan dhalanayo oo waxna u qabanaya masaakiinta iyo shacabka weliba dad ayaan abaabulayaa oo weliba sideedoo kale ah masaakiinta iyo shacabka iyo waddankooda wax u qabanayo فيديو كبرية استاك فيديو هيدي لو كبرية أنا كده نقول لهم كفتر أنا استاك كن أنا كنا فيديو سي أنا كسينا فيديو يا أخي فيديو أنا إدامية كم كيجا يا أمريكا جرو بنا يشيء جيسا والله يا تادي أي نو فيديو فيديو ما يا فيديو وكبرية جودا ودور سفلة وكبرية إيه أقولونه أوكي هذا يا نجادي لا جبرة جعشان مريكن كأي كناشان ورناجين الدبد الجرو مو واحد لا سرق إني قيميان بين أي وشيغان لكن بين لها نقطة أنا جا أي الدبد تاني واحد هاي صو سارايا أنا جبران يرانتين أي اسمقيني جبران قرصنا عديتها خوفك أولى أو شغلة وأبيجا لكن مسج كان قفك صغر أخبط ولا إلى أوجات أبيجا dib ma u wacda adreeskeeda ma ogaatana adreeskeeda muxuu yahay aniga ma aqaan meel ay degan tahay midda kale guri ay soo bandhigtay aniga ma ogolaada ma bilowday beenlow ma nagu cabaysaana naga tag taleefanka haddii uu ka maqan yahay kaartig waxaan u malaynaa inuu caajisay adig ma caajiskana abaan ku baryaa ii aamin haddii aan ogaada gabadhaas waxay tahay oy gurigeen diyaar u noqoto qofta uuraysan u sheegaya waa adiga ii aamin oo ku baryaa ii ogoloo taleefanka inaa isiis adigin balan waayo bal ii waran adiga ma israacsiisana haya qalbigaaga maxaa ku jira ii sheeg qalbigii adigoo keliya ku jiro adigna qaatigan kaa taagana cid kale ma tabar u haayaabani haddaad anigii jeclaatid waa balan cimrigaaga inta ka dhiman farxad ayaad ku dhammaysanaysaa fiidyaa adiga kaarta miyaad jeceshahana hooyaday aabbahay anigoo yar ayay geeriyoodeen kadibna adeerkay ayaa isoo korsaday kaartina weligiis ima dareensiin inaan cidlo ahay laakiin shalay markuu wax walba ii sheegay ayaan ogaaday aniga inaan jecelahay weliba si xad dhaaf ah qalbigaygana oo boos weyn ku leeyahay jacaylka inuu wax jiro yahay qofkan ay wax jeclaan karto waxaan ku ogaaday kaarti markuu noloshayda ku soo biiray markaas ayaan wax walba ogaaday aniga indhahana way i kala furmeen bravo عليك waan ku faraxsanahay maadaama gabadhayda ay wiil jeclaatay taasna waxay caddaynaysaa in nolosha ay qof la wadaagi rabto waan ku faraxsanahay gabadhayda dhegayso 4 beri kadib waa dhalashadaada markaas ayaan kaga faa'iidaysanaynaa oo wiilka runta loo sheegaya okay soo maaha maya aniga ma rabo arrimahayga kaarti in loo sheego waxaan rabaa aniga afkayga wax walba inaan uga sheegto buuggaana waa buuggii hooyaday xasuusteeda aniga wax walba waan jeclahay iyo hooyaday wax walba ay jecleed halkan ayay ku qoran yihiin mideeda kale aabbee iyo hooyaday meeshay isku guursadeen ayay waxay rajadeedu ahayd aniga inaan tago markaas kadibna anin ku guursado sur ayaan aadaya kaartina meeshaas ayaan jaceylkayga ugu sheeganaya aniga waan kugu raacsanahay ra'yigaaga gabadhayda meekab wixii shir aan leeyahay dhan jooji gabadhayda ayaan hindi u wadayaa sidee kaa noqotay ani markaan ciyaal ma ihi waxaan ahay qof weyn waana ismaarayn karaadeen kaarta ayaan soo afduubaya kadibna waan soo noqonayaa sabeela maaha soo afduuba aroos ma jiro aroos ma jiro samaama soo socda yaqi soo socda ka istaag meesha adi sidee maraykanka waaba ka tegaynaa meesha surweela ka hadlaysaa sunaami ayaa meeshaan ku soo socda sunaami
ها وكوسا sidee tahay اي صاحب سيدات adigan gudahana soo geliyaya soo baxnaya kaalo sinaamle buugda surwaalka maxaa ugu soo carartane sinaami ag soo rortaniya vidya waad ogtahay kaftaga noocan oo kale inaan ka xanaaqanayo runtii hadda ma xanaaqdan adiga kadig fidya walaasheeda waa fidya walaasheedana aniga ayaa qaba haddana waxaan nahay famil boodo adiga inaa kaftaga xanaaqda ma ahan yaaka iska dhaafa xanaaqee meesha hadduu jiifalaa ka waran sunaamiga ka kor imaan lahay saacadda hormaleena بس نقدر يا اخي سي سي هاي هاي اوكي ما هو هاي حرشي على طول هاي مع حرشي ما هاي معكو دعي محل فكر السابلان ما الى هذا الشيء يا ابا ولا لا ما كاينش قبطه مكو قنعسي مكو عايشك هاي هو وريا هوي يري كالي حاجرة يها عاو معناه ابو مدح الذهب خوت الذهب علوش الذهب قعمها دن ذهب كل هذا دن وذا ذهب وتايبه انا من دافتينا وايد تروغينا واي ولو دافع لكن حرش مدح على طورة هدي مدح او كصبح واسك بحسا حرش دو كصبح انه قفتان وانه تجيسا way faantii amaleena kaartig farxad ayaad ku soo wateen ha u maleena farxadaas inuu idin dhameystira farxadaas oo idin ka burburina maxaa yeelay asxaabtiisa oo arkaya wala baashaalaya bawr wadoog iyo baashaalo iska gala adinka dhan maba idin soo jeesanayo waa tuuri waa kaas hadalkayga waa sax ya haye shilinkayga u baahnaa walaal xarashii madax waxba kama ogi dadkan baashaal kale iska haye saas ditaani ada wada ciyaareen سي شلينكيغا يسو صار مسألة صدق سوالك تقوليا كالي ورسيكا يا سيو وريا جوغا كالي أديكا وريفك أنا قلت أنا ورد إنا وضع عيارنا أديك تحليل معاك سوقي لي وكبريا وكبريا بدك ما تسكنا وكبريا وكبريا ور أنا بعيارتا نوع أنا كلا وانسو عيار تنتي إيجا أنا أي عيار في عن كل عيارة هاي أنا ما إلى عياريسا aniga inaad la ciyaarto aniga bro laakiin waxaan ku sheegay sharaftaada aan ku taaban inaan ku ciyaari doon dadka hortooda wiliba inta la fiil soo galina ka fiista ayaa laga rabay maxaad iga qaadi kartaa adiga aniga waxa igu balan dadkan hortooda inaan sharafta kaaga qaado wariya qof walba mobile haysto waxaan rabaa inaan qoftan ka dubtaan waxaan ku sameeyay aniga amarkayga waa oo ku bariya walaalo oo ku bariya oo ku bariya maxaa dhacay kaartig aan ugu sheeg waxa dhacay فيديو ايش الفيديو لكن لو ساعة إنا وحال غيابة إنا هذا وقت نسيت أنا اسكمت أيوه معي gaashaale magaalada aanu joogno waxaa ka dhaca mar walba dil dhac kufsi boob waxaas dhacay dhan waxaa u sababay keeshow iyo walaalkiisa iyagoo og in sharci uu ka jiro misle waxay aaminsan yihiin sharcigaba in uu jiibkooda ku jiro
anigana anigo midaas ka damqanaya ayaa keeshow waxaan u xiray garays si uu ceyboobo waayo dhibaato walba beledkan ka dhaca asaga ayaa sabab ah iyo walaalkiisa waxaad adiga samaysay qalad iyo sax wixii ma sheegi karo balse waxaan kuu sheegaa labiskan annaga in noola siiyey in aan xabadaha tuugada ee soo gamaan shafka aan u dhigan oo aan dadka difaacno laakiin labadan nin dartooda sharafna ayaa noo soo gaartay marka waxaan kaa codsanayaa dadkan inaad layso wax walbaba anaa xabad ku dhiganayo gaashaalla aniga midaas qalad ayaan u arkaa dadkaasoo kale haddii aan noqdo hub qaato magaaladan oo dhan wada qabuuro ayay wada noqonaysaa keliya waxaan kaa rabaa qaladkaan galay in qaabtiisa in aan maro diyaar ayaan u ahay waxaad igu hakuto sharcigina kama weynin waxaad igu amartane waan qaadanayaa aniga ma laga yaaba nin daacada adigoo kale inaan xiro sharcigana dembi ka geli maayo iska baxa halkan maxaad igu yeertay war saaxiibta sidaad iga dhigta aniga dhan soo bilaana noqdo hadda soo bilaan rabaa miiraaxaysaane haa nakeen nama waalata maxaa kugu dhacay war aniga ma waalanay keesho si uga absata darteed sababtaad aniga ii samaasha ii sheeg midaas ayaa rabaa inaan ogaado war waan ku dilayaa ma ku cafinaya toosii dillo war adiga waxba dheer u malay aniga hooyaday aabahay intaa kadib ayaan iskuulka iskaga joogay adiga darta ayaan u joogay adigana waad i qiyaantay ii sheeg sababtaad ii qiyaamaysa aniga fidiya baalan oo kale isku wala aniga kadib ay dil war wajixmada maarta fidiya baalan inay kugu soo kor istaagsan maxaa ka qaldan adiga war maxaa kaa qaldana dilaada miya aniga gurigeena markaan ka soo baxayo qudha nin walba wuxuu hamiyaa gabadhaan quruxda badan siduu ku heli lahaa adigana jacaylkayga ayaad qoorta ka goysay waa ii sheeg aniga markaan halkaan imaanahay qorshe ayaan u imaaday laakiin waxaa xaqiiqa jacaylkaan aniga kuu qaad markaan ku arkay waa mid dhaba qof burcada misle gabar bii saynaysa markaan isku dhufto waxaan ogaaday inaad tahay gabadhii riyada qof qorshe u socday qofku warwal markuu arko wuu isku dhiibaa anigana adiga ayaan iskaga dhiibay hortaada naag ma jeclaano hay guriga hobkeena dekay inaan degmo biyaha iska waran dhib ma laha marba gabadhan dunida ugu jeclaa haddii ay go'aansatay in ay lamaano samaysato aniga run ahaantii wax dhibaan u arka mala aad ayaan ugu faraxsanahay wiilkan wuxuu la yaaban yahay aabbiyo halka taagan oo saan u hadlaya laakiin aniga waxaan hooyo reer magaal ah gabadhayda waxay jeceshaana waan la jeclahay marka gabadhayda adiga oo keliya ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi kara gabadhayda adigaa iska leh waryaada ninkaas waa in aad raadisaan magaaladoo dhanna cabsi inuu bannaanka uga soo baxa ayaan rabaa markuu soo baxane aniga ayaa ugaarsanaayo igama badbaadaayo taasi mid macquul noqonaysa maahan dadka mas-uulkuna nagama cabsanayaan cabsidooda ay ka guurtay qof laga gabanaya ma leh annagaaba qalqiil ku jirnaa markaanaan ku dhacay dadka dhamma nala shaqaynooyin hal habeen ayuu atoor ku noqday asaga walaan halkoma hoos soo deg wax adag deh walaal ganesh mar hore ayaan dhaweeyey kaale soo dhawow soo fariiso see kaa noqotay gurigeena maa nagu soo dhaweynaysaa ninkan waxaan rabaa raashinka ugu qatarsan gurigeena in loo keeno sidaa maxaad igu fiirinaysaa waa aniga cadowgaaga walaalkaaga markaan u dhameeyey waxaan u malaynaya hawsha inay dhammaatay balse adiga markaan cagajgelintaada maqlay waxaan ogaaday hawsheeda inay qabiyad tahay sidaas ayaan gurigaa u imaaday qaladka aad iga gelaysa adiga ilaa hadda ma ogid waad aragtay walaalkaaga falxumadaan u dilay isla sidaas ayaan ku dilaya haddaad afkaada xiri weyso hadhowna waxaa la wey doonaa qof adiga meydkaaga gubo amaba duuga carruur iyo cidoolna adiga ay kugu cayaaraan sidaad ugu cayaarta ayay kugu cayaarayaan middaas ay loobin aniga waxaan maqlay inaad ibaadi goobayso misna aad i raadinayso waxaad bilowsan tahay hal telefoon oo keliya haddii aad isoo dirleed aniga fadhigaa kuga imaan lahaa xitaa kafeeyaad cabayso free ayaan kaaga dhigi lahaa lacag kaa maqaadi lahayn aniga calaajabag ayay noqoleyd midda gabadhan ayaa kuu soo hartay waa indhahayga nuurkooda balana waxay ku qaaday nolosheeda inay ila qaybsato balanta inaa ka oofin halkan ayay joogaysaa wiilkayga adiga mid taha iloobin libaax inta uu ka fog yahay ayay fiirsadu ku fiican tahay mar hadduu hoosta ka soo galo waxaad ogataa libaaxaas inuu ku cunaayo aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso waa run laakiin waxaa ka sii daran ninkii libaax inta u tagay madaxa ka salaxa kadibna qoorta ka gooyey hadalkaaga ayaa hadda wadda igu furantay aniga middaasna ogow ayaan ku dhahay inaad heshiis rabto maxaad igu sheegi weyse waa wiil balaayo iska dhigaayo waxaad ogaataa
qofkii balaayo ku cayaara balaayada inay ku cayaarayso aniga ma dhihin taariikhda ayaa xusayso qofkii bisada iyo qofkii libaxa taariikhda ayaa xusayso marka wakhtigeeda la gaaro walaal wadada muu galnaa muu dhammeynaa inta tacsida oo halkii ka dhammaanayso gacan yaa loo qaadin soo niima dhihin anaga maa gacan qaadin dad ayaan dayanaa oo ku dhan walaal ninkan kalsoonida guriga ku soo gala ayaan la baqayaa aniga maxaa yeelay ninkan waa nin khatar ah lugaha hoostooda ka soo ayaan ku dhiilahay isku badnaa walaal saaxib meesha mar walba ay farxad noocan oo kale ka dhacda joog waa inaad noo badishaa yakh midaan waa caadaysana mid kale ka isla markeen midaan waa naanige mid macaan badan noo soo saar haddii aad hoostaye jabiga bedel wuxuu ka wadaa mataqaanaa wuxuu rabaa anaga jabigeena in uu bedelo laakiin annaga midaas kama yeelayno annaga jabigeena intaysan bedelin ka hor ayaan jabigiisa bedelaynaa asaga aniga ma dhihin waryahay nimankiya haddii ogoshiin aniga inaan hadlo waa hadlaa raalli aan ka andhaka jawigayga in la bedel diyaar aan u ahay laakiin waa inaad marka hore jawigiina aad bedeshaan goobtan waa inaad keentaan naago qurux badan haddii aad rag keentaan sidii warqadii oo kale ayaan u jeexayaa aniga ragga xaggeygana waxba kama ahan tolkaa tahay iisoo duceeya idin iri dhammaantiin aabi gabdhahoy quraxmaashin चखने दे टेस्ट तेरा और सुनिए साथी ना जमाने सबकी चिंता बनी साथी ना जमाने सबकी चिंता बनी चांदी से मैं तुझको सवारूं साथी ना बड़ी आइटम मैं बसोड़ी साथी ना बड़ी आइटम मैं बसोड़ी मेरे पास साथी नाग बड़ी तेरा दूसरा सही साथी नाग बड़ी तेरा दूसरा सही Makai, makai, chapa menya kuyamba ukumbe mampa kauji sombe, chapa hi, ambire enya kuyamba hi, ukumbe mampa kauji sombe, jamuro jamala jambarula nasraminana na hisa turrijana. Ayl badana idageysa adiga
waxaa la gaaray waqtigii wiilkeena anaga aan u aari lahayn horta ayaan ka soo gorinaa nakeen adinkana kaartaag ninkan anaga akhbaarta beenta waxa uu noogu soo diray waxa uu rabay ninka wiilkeena diray inuu halkan ka fakiyo laakiin anaga midaas kama yeelayna maantana waxaa ogaataa in aan kaartig dilayna cid bini aadan oo naga celin karta ma yarata ma jirto ماذا تقول maxay tiri micnahayga waryahoy dadka u bootaysa ka cabsaya aniga mi hilaa ku iri ana aiza waxaan rabaa wiji ka wiji okay mo bella waan ku dhahay bravo waryahoy boota waa dhameysi dad kale ka cabsaya maana aniga ma ka cabsaya iskaan waryahoy aniga nin cabsada mihi gadaashayda waa la jooga dud libaaxan ku dangiiga waryahoy aniga ma kula dagaalamay adiga nin facaga kula dagaalama aniga waa ka yarya kaartig adeer 13 maalmood ayaa aniga iscelcelinayay ugaarta aan gaadgaadayna horteeda ayay taagan tahay waa maalintii ugu dambaysay taasiida walaalkaa meesheed masaakiinta aad raashinka sileed ma waxaad halkan u timaaday inaad dagaalii fooda abaabusho 10 qofood oo adiga aad soo dirtay haddii ay feri ugu dhuftaan aniga midas waxba uma arka laakiin hal feri aan ku dhufto 10kooda haddii ciidda ka hoos mari waayaan aniga ayaa kuu imaanaya gacantaada weliba sidaa doonta igu iqaab beello waa nin ragga ninka sidaan u hadlay haddii aad dagaal u imaaday yaad u xeeran tahay gacmo furan ku soo dhawow aniga hortaada ayaan taaganaa soo soco hadal badan hadma buuxsha ayaan ku dhahay aniga ayaa ku tusaaya waxa aad tahay meeshan ayaana kugu jarjarayaa iska kaydhica ayaan ku dhahay cid kaloo kula dagaalamaysa malaha adiga markaad walaalkay gacan u qaadaysay soo ma ogeen marka aniga gacanteeda aad soo gasho in aadan iga badbaadeen war dadkoo dhan haddii ay isku yimaadaan cid iga kaa badbaadin karta ma jirto iga kaana gabarta tan soo ma ahan gabadhii aad rabtay inaad guursato hortaada ayaan baasiin intaan ku bilbala dab qabadsiinayaa haddii aad iga badbaadin karto keena basiinka ku shuba ayaan idhaa basiinka walaal ku shuba si fiican u daawo adigii iska daaya aabbaha xataa ma badbaadin kara ayaan ku soo istaag aniga anaa la siinaya
كارتك كلنا ما بنقول بس هكا عبصر الماس كسر walaal wax maa ku gaaray dhammaantoodii soo aruuriya soo socda war yaa soo socda haye wiilyahow markaan kaa diidayay dadkan arrimahooda inaad faraha la gasho sidan ayaan kuu diidayay maxaa yeelay waqti fiican ayaad akhbaartooda soo gaarsiisa mooye saacaddan way kuma bixin lahaayeen hadda gacanteeda ayay soo galeen taariikhdan xusi doonta mar dhow ayaga way u dhamaateen gaashaanle bistoola soo qabanaysa annagaan ugu kor jaranaysa waxaad ogaatay adigana taariikhda in ay wax kaa qorayso xaafadda awjid annaga ayaa u tirinay yaa way cidda gacan noo qaadan karta car waa kaas annaga qof soo baxo gobolkan dadka degan niyadda ayagoo ka jaban ninkan ayaa u imaada kalgacayl buuxa ayuu siiyey asagana wuxuu mudan yahay kalgacaylkiisa in wanaag loogu bedelo akhbaar farxad leh ayaan idiin hayaa maxaa yeelay ninkii magaalada qasi jiray maanta gacanteena ayuu ku jiraa sidaad doontaanna waad ka yeelan kartaan fasaxaad u tihiin qofkii dhibaato badan geystaa ogaada mar inay bulshada ku kacayaan oo qoortiisa ay qac ka yersiinayaan hadafta maxaa samaynaynaa waan isguursanaynaa no waxgarad ayaa tahay guurka wax ka diyaarino okay marka cunigaan dhalano